waxay ku saabsan horta sanad cusub waxaan galnay hijriye ah 1444 ayaan galnay waa sanad cusub ilaahay inoo barakeeyo maalmihiisa maalmo khayraad allah inooga dhigo wixii khayr ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku dhex qadarayna allah ina waafajiyo wixii dhib iyo shida ah oo ku dhex jirana ilaahay subxaanahu wa tacaala qadihiisa iyo qadarkiisa anagoo ogol allah inaga fuudeeyo hijrada in sanadka hijriye loo bixiyo waxay ku fadhidaa macnay ku fadhidaa nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu dhashay sanadkaas waxa la yiraahdaa caamul fiil maxaa yeelay dhacdo oo maroodiyaal niman soo kaxaysto kacbada inay dumiyaan rabaan ayaa la halaagay caamul fiilki taas way soo dhaaftay sayidina umar xilligiisii ayaa in taariikh diintan islaamka iyo ummadan islaamka taariikhdooda yani wax ay ku taariikhaystaan inay qortaan ayaa la isku soo qaaday waxa la isku weydiiyay markay xayeen ka soo bilownaa sayidina umar mulham ayuu ahaa meesha uu ka bilaabay waa meel yani tusinaysa marxalad isbedeshay inay ummadda islaamka taariikh ka dhigato lagama soo bilaabin maalinkii nabiga la soo saaray oo maalin weyn ayadana ah laakiin dadku way yaraayeen markaas dhalashadiisii lagama soo bilaabin oo ayadana maalin weyn ah oo nabi sallallahu alayhi wasallam uu dhashay ayadana lagama soo bilaabin waxaa laga soo bilaabay markii nabiga uu soo hijrooday ee uu ka yimid maka uu ka yimid ee uu madiina soo aaday maalinkii ay ahayd ayuu sayidina umar wuxuu halka aan ka bilaabano sababtu waxay tahay inta ka horeysay diinta islaamku awood iyo dawladnimo ma aysan lahayn dad afraad oo waxay ahaayeen qaarna la xiray qaarna la dilay qaar xoolahoodii la qaatay la dhibaateeyay laakiin markii la soo degay madiina la soo degay la soo hijrooday waxa isbedelay marxaladii tabardarrada ee muslimiinta waxay noqdeen marxaladii awoodda iyo dawladda ay noqdeen saasa marka loogu asteeyay in taariikhda hijriga halka laga soo bilaabo sanad kasta markuu bilaabanayo marka oo hijriyadii ayaa bilaabatay markaas duruus aan ka faa'iideysaneen ayaan ka soo qaadanaa waxaan maanta ka soo qaadanay marka caalamka maanta gaar ahaan ummadeena Soomaalida dhibaato muddo dheer haysatay ayaa ilaa haddana haysata marka dhibaatada iyo mixnada iyo shidada taala yani siirada markaan fiirino ama aan taariikhda fiirino yani dhibaatada la soo mari jiray oo nabiga sallallahu alayhi wasallam oo khayru khalqillaahi ayaa quraanku wuxuu noo sawiray asagii saaxiibka Abu Bakar sida ay ahaayeen maalmaha kamida diintan islaamka ee maanta dadka haystay ay tira badan yihiin maalin ay tabardarri meesha ka qabto ay ahaayeen laba qof oo yani dhibaatada markii la hijroonayo tusinaysa laba qof oo god ku jira oo cadawgoodii soo eryanayna uu kor taagan yahay ayaa soo martay muslimiinta hoggaankeeda ogaada marka haddii dhibaato idin ku dhacdo waxa isbarbar dhigtaan marxaladaas ayada ah iyo hadda sida aad tihiin waxa fuudaanaysa marka inaad dhahdid war ani waan fiicanahay wax dhib oo haystaba male maalin ay laba qof kaliya intay god ku jiraan oo dadkii raadinaya oo yiri qofkii soo hela geeri iyo nolol ku keena yani 100 neef oo geela la siinaya ayaa kuwiisa u soo ordaayeen godkii ay ku jireen ay soo kor istaageen sayidina Abu Bakar wuxuu rasuulka Ilaahay haddii mid ay kamid lugihiisa uu fiiriyo xataa asaga inuu inaga raadinayo ma lugtiisuun hadduu intuu wax ka dareemo yiraahdo bal lugtaada maxaa kaaga yaala iyo lugtiisa la hadduu fiiriyo wuuna arkayaa maxay inuu kor taagan yihiin markaas wuxuu ku Abu Bakar maxaad u malaynaysaa laba qof oo Ilaahay uu saddex ku yahay Ilaahay baa inaga jiray waxba ha cabsanin quraanku taas uu inoo sawiray oo Ilaahay uu leeyahay wuxuu ka hormarsiiyay diintan islaamka inaad u gargaartaan ayaa la idinka rabaa illa tansuruhu haday idinku gargaarin diinta ma dayacmayso way macnaa laakiin idinka sharaf waxa idin ah idinka ku sharfoomaysiin diinta u adeegeeda u khidmaynteeda idinkay dad idin tahay sharaftaas raasada illa tansuruhu hadaad u gargaari weysaan faqad nasarahu Allah ilaahi baa u gargaaray id akhrajahu alladheena kafaru markii nabiga la soo saaray oo gaalada ay soo saareen id akhrajahu alladheena kafaru thaniya thanayn laba asoo mid ka ah fa'idhuma fil ghar markay godka ku jireen يعني يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إلى بين الجن استجي فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى كلمة قال يا نبي أنا قبطان ويدلان كوير رمي هو صيام مرين وكلمة الله العليا بمعنى سكستوا مسلمين دباتا يدين جارتو إلهي مسلمين تأيوا النبي أبو بكر قد كجرا سوبك بهذه ودينتي سكر كدغي إله سو جوغا دينتي سنه كور ايو كدغايا waxba cabsanina diintiina ku dhaqma diintiina haysta dhibaato ka soo ku jirta wad ka baxaysan marka jaanibka siirada aan ka faa'iideysan oo hijrada waxay tahay mahma kaanat shiddatu wal mihan si ka soo dhibaato u jirto ugu dambayso oo laga bixi doona nabi sallallahu alayhi wasallam markuu baxay dib ayuu fiiriyay magaaladii markaasuu ka xumaaday wuxuu wallahi innaka la habbu biladillahi ilayya adduunka ilaahay makaan u jeclay
ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت هدينا ضدك وإساري لهين ما أنا بحر هين سلوك البقولوجية وحاله رسولك إلهيو horta waxaan ugu eryanaayo soomaha kitaabkan quraanka maxay dadna quraan ugu soo dajin lahayn oo reerkiisa iskala joogi lahaa cid eryan lahayd iyo cid bixin lahayd ma jirto laakiin bixintan waxa keenay waxay tahay adiga kuma diidanine maxaa waxaan u sheegaysaa quraanka waxay ku yiraahdeen wada tudra alayhim ayatuna bayinatin qala alladhina la yarjuna liqa'ana iti biqur'anin ghayri hada aw badilhu بعد القرآن كان أنا بدل أما مثل الوكين قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي ما بدلي كلاه سوء إلهي يوسف بيبين بارودي بأوكينايا فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم مركب هذا لا تنقعوا أشخاص ما هو عيديدين وحيتهاي مبادئ أو إسلام لماذا كاس هدي كاس عاد اسكديسو وفق وفي عن النقونة هذا كا كل توتر والإسلام كان أنا وحنا كده رسنا ماله نفط إذا أو يقول حجرته وحاجة قالس الدين تيدا هل قاعد تكتو كواس اسمه إنسان وحلا بدي دايما قاعد معه لا يقول النبي قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون وحنا يكلين أمرنا الساحر وكلين أمرنا كذاب ويكلين ونقناي إنه يكون حنوجنا يسوم حيل قفل عيناي وكحمانا قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون هذا يكون مديدين آيات إلهي بيديدين هذا وحان اسكوها يسنو نبي مجوغو نبي لديدا هذا مجوغو لكن وحاجوغو ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون آيات إلهي موضعنا مركة عسى اسكونا عيناه ومركة آيات إلهي دا اسكد ديننا ولي واحد يكفي عنه وحين اسكد إنك اسكد ناف رسولك إلهي وحالي وإن كادوا وحي كستكتان ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ويبقى السيان بينك الجيلان من أين جيدي كرينه لكن النبي صلى الله عليه وسلم حارس بدني ديسا أيام مرك عرض حكوشو داعيسي وحي داعيان هدارك إنان كرمينو أنك نلا فريسو كواس كان اسكيري مركز النبي حكوشو داعيسي حارس ديسا كون مسلم كهذا هذا وحقا بل إيه ربنا كونا وحشيء جاية كامل بحمانا يروح حرنا بيكون وجران أمات كستو كون هذا بل وحقا كونا بشرط كده إنا إلى فريسة تاس ماشي حكوا بابايسة دين تو حيقط متبع أيام ماشي كبحيس دين ترى حيقط مت وحل الرمايو أو عدي الرميساي أي اسكو من نقنايان أيامنا وحير ربان دتكي بين آدم كاسكو ملك الجوري وحيابا أيام أي سمايستان أو أما حاله أما قبيلة يكسو جيدان أما مال إنه كلا سريو مركا إنا يرهدان كوان اسكو منهن مستوى منهن اسكو لافل منهن وحقا بناك ويربيح عنك أنا هذا مركا سنة وحالو حكيين ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حساب من شيء وما من حسابك عليه من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تضع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرضا ماشي والله كلا بحي مبادئ يا قيم يا أخلاقية إسلويني يا تكبر يا أنا سلانة أيا لك دماء دين الإسلام وحيوي ما تمركه دتكو إنا إسكو من نقضان الناس سواسية كأسنان المشط كوا مركه إسلا سرين تقبا قرآن كحوي قال الملأ الذين استكبروا مركه كوا كانوا الحيدان الذين استضعفوا معين انتي لك دمين ما كوع لك دم ما يحوك اسمها واجغو يسلوين يمضحبا كو اهي الى ما فريسان كرتد الى ما سند سالي شو سنن بقف قف كفي عن كلكم من ادم وادم من تراب لا فضل على عجب الا بالتقوى marka nabi sallallahu alayhi wasallam mabaadidaas uu imaaday saasay ku socotay diintan marka in mabaadideedii la hirgeliyo ayaa loo baahayay marka waa lagu cadaadin waa lagu dhimi Soomaa iska ogolow hal dhib maxaa yeelay waa wax la isku ogyahay waa ambiyada ilaahay waxa leeyahay ma yuqaalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablik marka hijrada mixnadaas iyo shidaas nabigu soo maray kadibna 8 sano oo uu ku maqnaa Madiina kadib ayuu ma kadib u soo noqday ayadaha salaadu inuu akhriyo imaamka inna alladhi farada alayka alqur'ana la radduka ila ma'ad waa lagu soo celinaalay waa la soo celiyay 8 sano bisoo maqnaa 10 kun oo ciidan soo wata ayuu maka ku soo noqday shalayna muxuu ahaa id akhrajahu alladhina kafaru thaniya thanayn 8 sano gudahood 10 kun uu dib uga soo laab marka diinta way guulaysanaysaa illa tansuruhu faqad nasarahu allah hada idinku gargaar weydaan ilaahay baa u gargaarayo waay marka ilaahay haduu doono inagoo abuuray noo dirin inaga uu diintiisa banaanka soo dhigan kara
لكن إننا لنقول امتحان ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض ولنكون اسكو امتحان أهل الدين أصحاب المبادئ يكون الدنيا دورتي أو وحبك فلان الدين يا أخلاق أما شان سعود مركز الدين تهذا كل الجنو لين مدق بدح حوالي حنن ساسا الاسكوية مركز هجرة ساسا وسوق هذا مدق لو حنسوق هذا أو خطبة لبعض قصة runtii yani waqti hadda aan joogno in badan oo dadkeena kamid ah aqal cilmi noqon karta horta waxa laga tan Soomaali waxa aan isku haysano oo intaas oo sano dhibka inooga taagan yahay horta waa duuye jacayl adduunkii meel badan laga helaa laakiin waxa dadka waxa loo fahmay adduunku inuu ka agdhow yahay xukunka haddii la shaqaysto oo ganacsi la galo oo meel kale adduun waa la helaa oo ganacsato maal qabeena oo madaxweynena ahayn wasiirna ahayn ayaa tirada ka badan oo waxay ku falaan waxaas aan jirin laakiin dadda waxa u fahmeen madax markii la noqdo wax la helaaye halkan yaan laga fogaanin waxayna ka keeneen moqtari baadiyaha waxay yiraahdaan dhari ninkii u dhow lafta kala baxmiya ma aqaan ama wixii saqaat waxay meesha ka fogaanin lafta kala bax waxa la isku haystay horta waa laf ogaada wax kale ma laftana dadka dhuunta u gashay ogaada dhuunta la soo wada galay marka qisa waxaan soo qaadanay adduunyadan dadkii ilaahay yaqaanay حقيقة لا فهمي بل قصة أي كسر وريين حلقي أمويينتا وخليفة مهجاميها وها هشام يا وحالي وين حجين أسوأ حجينا وكعبان ضوافايا يا وحول أركي نيل هذا سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب نوات قانان يعني أبتركي سنين كجرة يا الدنيا حال كان كتاجن وحال أركي أسوأ كبير سنة يجوج أيهين dharka uu sitana laga dirham uu san dhanay waxa uu qaba dhar adduunyo sida ay ka tahay kabiisu ay go'an yihiin oo gacantu iskaga wato kacbadu dhawaafay marka madaxweynihii xilligaas ama khaliifkii xilligaas Hisham yaa arkay marka wuu yaqaanaa wuxuu ku yimid uu soo dhawaaday wax dan ah oo aan ku qabto oo i weydiisanaysa ma jirtaa markaas intuu fiiriyo soo la yaaban oo waxaan aqsan wuxuu ku yiri ama tastaxyi niyo ma xishoonayni baytullahi baan ku jirnaa kacbada ilaahay baan joognaa markaas waxa iga rabtaa ilaahay qeyrkii inaan dantayda u sheegto miyaad weydiinaysa miyaad xishoonayni uu yaabin isku khajilay nin dhalo madaxweynaha oo la maanta qofkan fursad baad siisayba watan idin laha ka warama tacliiqa hadii maanta madaxweynuhu ku yiraahdo maxaan kula qabtaa jaag ii qor la dheerayd intaas milyan ku qoran tahay ama meeshaas ii magacaw ama saas waa dadka adduunyada la weyntahay سالم وذكور ورنيه ما يحشونين بيت إلهي كعبة بان جوجنا مركز وحال ربطة إلهي غيركي إن أنضمت إلى غشيرته ورنيه يقال له بس وش كنافه وخجله وحشاضي لكن قربه كل سعود وفيرنا بالماشي وكبح أيه يعني درنا يوجلي مركي ضوافك لما يستي أو بنانك الله بح كرس وغفيرنا مركو أركينه مساعد كبح بنانك يسوي جوجو يكذب التجي وحكينه هداي مساعد كتجرتي إن أدني ويدي ستوى دي هذا بنانك مساعد كجوك تايه دن يويديس محن كو قبطها مركز وحور waxa tiin ku weydiiso madan adduunyaa mise wadan aakhir horta markaas suuri dan adduunyo maxay dan aakhiro ilaahay bas la weydiisan kara oo aakhir ilaahay ba iska leh oo asaga wax siin kara anaga aakhir wax ma bixin karno laakiin adduunyada danteeda weydiiso waxba aan yahay markaas wuxuu ku yiri Hishaamow ilaahay baan ku dhaartay ilaahiga adduunyada iska leh ayaan weydiisanin adduunyada inuu siiyo maxaad u maleen qof aan adduunyo lahayn seen u weydiisana marka aan ilaahay baan weydiisan ilaahay adduunyada si ma badhaaba aniga markaas waxaad rabtaa adiga oo adduunyo aan haysan leenaga madaxweynaha ama boqorka ma adduunyo haysta bari asoo meydkii soo bixiya u dambayso kullu nafsin daa'iqatul mawt qof noocaas marka adduunyo aan haysanin wuxuu ilaahiga adduunyo iska lahaa baan adduunyo weydiisanin baan anigu iska dhaaf qof adduunyo aan haysanin oo waxba ahayn oo anoo kale inaan adduunyo si aan iraado warni hor shaqeeyo shaqo malid marka dadkii ilaahay yaqaanisaas adduunyo innagana maanta maxaan taaganahay wasaaradda hebel hadaan reerkeena la siinin oo reerkeen wasiir hebel maxay ka rabaan dhacdhac bay leedahay oo dadka artana dhacdaan wala ma xishoona ka war wasaaraddaas aqooniyada taas reerkeena la siiyo taas wax ma yaalaan dadkaas ma dhismay marka dadkaas ma meel u socdo marka waxaan isugu sheegay waxay tahay war adduunyadani waxba ma aha inna allaha yu'di ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhib ilaahay adduunyada wuxuu siiyaa qof uu jecel yahay qof uu jecelayn ba wala yu'di ad-diina illa liman yuhib laakin diinta ilaahay wuxuu siiyaa qof uu jecel yahay oo kaliya
marka qofka ilaahay diin u waafajiyo istiqaamo uu siiyo fahmo xaqiiqadan adduunyada inay tahay wax yar oo maalmo la joogay oo tarasad lagu yahay waxaan waqti iskaga ma qaadaayo ilaahay wuxuu tilka daarul aakhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada yani hadina waxayna ismahay tahay hadii ay ahaan lahayd si islaamku ugu talagalay mas'uuliyadda islaamku wuxuu ugu talagalay adeeg dadka loo qabanayo oo qofkii raba inuu dadka u adeego inuu yiraahdo anu waan adeegi karaa ma idin adeegaa hadduu saas yiraahdo oo la yiraahdo kaalay noo adeegna ahlan wa sahlan wa adeegaya haddii la ma adeegaaga ma rabnana waa mahadsantihiin hadday ninku inaad ii adeega aan rabin meel kale ummadda uga adeego oo tiro badan ayaa jirta halka markay marayso ayay baraka leedahay laakiin hadda waxa taagan aan ummadda u adeega ma aha aan ummadda ka adeegtay oo meel iidib muslimata war ummadda yaa laga adeeganina ummadda loo adeego intaas aan soo imaano ummadda in loo adeegaa raba kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun an ra'iyati in ummadda loo adeego sayyidina umar ayaa wuxuu magacaabay ninkii dhijray saciid bin aamir al-jumahi gudoomiye gobol uu magacaabay saciid bin aamir wuxuu ku umar ilaahay baan kugu dhaariyay ha ifidnayn inay dhaaf gudoomiye gobol ha ii magacaabay faraha iga qaad markaas wuxuu ku yiri weylakum inkaar haydu ku dhacday oo yaan hadal canaan ah aniga mas'uuliyadii weynayd ayaad korka iga saaraysaan markaas aad iiga kala baxaysaan miya wallahi inana ka yeelin waan ku dhiibaya gudoomiyaha gobolka maxay noqotay marka koona wuu diidan yahay koona wuxuu ugu dhiibay wuxuu leeyahay war mas'uuliyadii ka weynayd ayaa ana culays uga ah sayyidina umar markii oo toorida lagu dhuftay ee dhaawac u ahaa yaa waxa wiilkaaga abdullah ibn umar yani u qoro asaga ku bedelo sida hadda loo yaqaano dhaxal sugaha waad maqashan wali dhaxal sugaha wiilkaaga dhaxal suga ka dhigaalay oo marka adigu dhimato asagu meesha qabto markaas wuxuu xisaab iyo dib qoyska aan ka soo jeedo aala khitaab la yiraahdo aniga ayaa ugu filan wixii aniga i gaaray qof kale oo eelkayga inay gaaraan mar rabo هذه المسؤولية قفكي مركز ساس لو مد وأذيجنا سود هذا كي كل ربنا والله أنا وحبك قاذين أذيق أو صح النقضي وإنكار يكون عضي أو عذره يبلايين يعروتي وكاحماتي يوحى صدق ودمر دايان أياد ماشي كتير ساعة ومد أن الصومال ما أنت ماشي أمانة سوارتين والبحر مجال بنانك وقبح ضد كان أما بركة كو إماضي أما بلديها جوجا ظروف كم موقت عد مقر أي سنجرين يصير عيتاي قفكي مقعود المسؤولية أنتو كقاعد هذا عن كور قبل كاس أصعد بعد قبل مركب مال الله أرضه يمال لك أرضه ماشي المتعلات قف كستو أمض ماشي وأذي كرو هو أذيه هذا الأمض وأذي كرينا أو يران نبكى كذا النبي صلى الله عليه وسلم صباح كستو واجب بريو قف كستو حكوا واجبي صدقة يربحيه مركز وحي كور دوسنا يسنوه وحصدقة يستو markaas wuxuu gacantiisa ku shaqeeyo naftiisana ha anfaco asna ha isanfaco markaas wuxuu raaduna shaqeeyna markaas wuxuu yaamuru bil ma'ruf wanaaga dadka uu sheego markaas uu illa yafcal haduna sameeynina markaas uu yumsiku aan shar dadka dibka la ka daayo sadaqa ayay u tahay marka ugu yaraan hadaa waxba dadka siinay hadaa dibkaaga la naga badgalo intaas sadaqa ku ah marka imma ina sadaqa baxsato dadka adeeysid wa imma ina inta wax ku darto dadka u qabatid oo dadku adeegtid intaas adduunyo ugu soo dhawow saana dadka ugu shaqee adduunyo intaas qiimo ku leedahay laakiin marka tiraado waan ka shaqeysanaya waxbaan aruurinaya alladhi jama'a maalan wa addadahu wadayaashii hore culimadana waxay dhijireen banaw ma sakanu way dhiseen min ayna degin mid aan saaxiibana wuxuu guriyaha waaweyn la yaaburi intaas oo guri waxa arkay oo dabaqii ah si loo dhisay ninka iska la markuu dhameeyo wuu dhintay maqleen maxaa ku dhacay markuu dhameeyo u dhimana ومحاجر وحول معنا سوق فكراي وحسوا الرادي وفكراي عذرنا كل عورة مركو دمايا وجري وتام لقضاء أنت عشان دلقوا ياي ميت كسب حيلك وحيد بنوا ما سكروا هاي بعقلهم جمعوا ما أكلوا ويسوروا ريان من عين عنين ويكتجن والواحد نوع عاسة يعني ضدك اللي قدلين يعني اسكن عن يعني لقد نجن هالباب هدي له وصيانة وفي عيه ويسي هدوك السين وأنا وحناقة القرآن كواس حوي قانا منافقين وحالكم حاجرة إذا أعطوا منها رضوا وإذا لم يعطوا منها إذا هم يسخطون هدي الله سينا خالي نقولنا هدي له جيدنا وحناقين ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون هدي سعدي لهاي وقال لها واحد إلهي باب بحية كوب شاه وإلهي يسنكو قرن عبي ميس كوب شاه وإلهي كو قرن كوقفي ومايو ما يسولي بعدي ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده سو كما وردنس مركان صلاتك بحنبا اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت
إلى واحد واحد ريبتن عد كيني كرتمله وحي هذه السيسن عدك علن كرتمله ساسا قلبه وكدقة وحسلوني اللي قهلا مركا الدنيا وحيلا متاكسية وحالي وهوس كاوكله أفما ما واحد أنا سولمان مركا واحد سكوت جيسنا دين لي الله دين لي أما جو عقل دين لي هذا البالد هذا روري ديري واي شيء قال لي مركا روري ديري واي وان أرضي وان جاري واي هاي الشيء محل قودالي هوسنا وطو هوس كاو روري ديري واي هوسنا وطو مرة هوس كاو واي معنا بل هوس كاو إيري أدوكاس سكست هذا دور هوس كاو مسوق نقرت الدنيا الحياة لما تحسد هوس كوكله هداد إريدو أو كورد ويكعرتا هداد كعرتنا هوس هداد كعرتو أساق صوت الرعاية مركز الدنيا كوردينا كوردا سيدين صدق أردو وما سنتين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وصلى الله على سيدنا محمد